Soomaaliya waxa ku soo wajahan dhibaato amni oo tii ugu darnayd ah waxa kale oo ku soo wajahan khalqal amni duqeyn iyo gantaalo tii ugu darnayd madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waraysi uu siiyay waxa uu sheegay inay Soomaaliya kamid tahay ururada Carbeed ee la diriraya nimanka la yiraahdo Xuutiyiinta taasi waxay ka dhigan tahay Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud habeennimadii xalay inuu ka tuuray dalow inuu ku jeheeyay gantaalo aysan shuqul ku lahayn Soomaaliya si lamida waxa uu sheegay ama uu ku jeheeyay Xuutiyiin inay Soomaaliya cadow ku tahay waxa barnaamijkan kugu la wadaagayaa kugu faahfaahinaya kaaga xog waramaya waraysigii xalay uu siiyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Soomaaliya waxa ku soo wajahan dhibaatada ay cagaha la gashay iyo waxay hadda kadib noqon doonto waxaan ka codsanayaa intaan xogta iyo sharaxaad guda gelin muuqaalkan share garee meel fog gaarsi barteeda Facebook soo follow garee barteeda YouTube na subscribe ta la dhac aragtidaada comment-ga nagu la wadaag ninkani waa Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynaha hadda ku fadhiya xafiiska fil Soomaaliya waraysi ayuu xalay bixiyay waraysigaas waxa uu sheegay inay Soomaaliya kamid tahay ururada Carbeed ee la diriraya nimanka la yiraahdo Xuutiyiinta waxa kale oo sheegay in Soomaaliya laga duqeynayo Xuutiyiinta haddaba maxay dhalin kartaa maxay keeni kartaa maxay sababi kartaa Xasan Sheekh Soomaaliya wuxuu ka tuuray dalow wuxuu u sameeyay cadow aysan lahayn wuxuu abuuray cadowtinimo Xuutiyiin oo kala dhaxaysa Soomaaliya ayadoo aan ognahay Xuutiyiintu inaysan Soomaaliya aysan wax caadi u geysan waa laga yaabaa inay taageerto oo si indirect ay u taageerto kooxaha ka dirira Soomaaliya sida Daesh iyo Al-Shabaab laakiin nimankaas wata gantaalada iyo diyaaradaha 24 saacna duqeynaya maraakiibta xeebaha la diriraya Mareykan iyo reer galbeed oo dhan hadii Soomaaliya ay cadow ka dhigatay hadda ogaada gantaalka ugu horeeya waa soo socdaa waxa ku xigta maraakiib ayaguna sidoo kale duqeynaya dalkan Xasan oo marka Xuutiyiin cadow ka dhigatay Imaaraad oo haysta wuxuu dalkiisa ku difaaco wuxuu deegaankiisa ku difaaco wuxuu bulshadiisa ku amnigeeda ku ilaaliyo bal adigu la safatay waxaad ummadda Soomaaliyeed ku ilaalin lahayd yaa laga waayay Imaaraad wadiga dabada ku xiranayay yaa laga waayay waayo waxaan sheegay waa xaqiiq anu cidna u gafmayo madaxweynuhu waa madaxweynaha haddana saasoo ay tahay markii Xuutiyiintu ay soo ridaan gantaal Soomaaliyana ay ku soo garaacaan wuxuu ugu jawaabay Xasan Sheekh ma dhisna ciidan ma lahan gantaal male qori male hum male shabaab ku adkaan laayay Xuutiyiin wuxuu doonto gantaal wata duqeynaya wax gumaadaya boqol wiil oo shabaab ba ciidanka xooga waxa ay ku laayeen Majid Cali Guduud iyo Aadan Yabaal iyo Maqokori iyo Aboorey ku laayeen wuxuu saaka doontay Xuutiyiin halka fadhida wuxuu kala raadiyay niman gantaalo iyo sawaariiq wata buu raadiyay oo doonta oo cadow ka dhigtay oo cawtinimo ku sameeyay warninkan haddaan ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed laga qaban wallahi Soomaaliya waxa galaysaa meesha ugu xumayd waxa laga sheekeynayaa Xasan Sheekh xillu xilka hayay waxa laga wada hadlaya war maxaan sameeynaa baa laga wada hadlaya war maxaa Xuutiyiin iyo afaara aan la garanayn iyo reer galbeed iyo balaayo la dirinay maxaa galiyay anu ku fuustaan cid soo riixda waa garanaya Ismaaciil Cumar Geele weey waxay baa inii sheegay Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha Djibouti weey Mareykan baa u tagay waxay dhaheen dalkaaga Xuutiyiin aan ka duqeyn oo aan ka layn waa diiday Xasan buu u yeeray wuxuu Xasanow Soomaaliya laga duqeey Xasan qalinku ku diigay waa mid ku cadeynaysa maanta waraysigan Djibouti ninkii xukumayna dalkiisii buu ilaashada waayo uma babcadii karo Xuutiyiin gantaal ay soo ridaan kama hortagi karo sawaariikh ay ku garaacaan uma jawaabi karo danta waxay ku kalifta inuu ma garanaysaa shib iska dhaho oo Soomaaliya u soo waarido marka aan leeyahay Ismaaciil Cumar Geele waa cadawga koobaad ee Soomaaliya waa mid ku xaqiijinaysa Xasan buu u yeeray Djibouti bay ku wada shireen wuxuu ka dhaadhiciyay in ma garanaysaa Xuutiyiintu Soomaaliya laga duqeeyo Xasanna sidaas uu ku yeelay maantana waa isaga waraysigiisa ku sheegay uu bixiyay haddaba Soomaaliyooy maxaa ku talaa marka ilaa Xuutiyiin oo aan ognahay waxay haystaan oo aan ognahay waxay gumaadayaan oo aan ognahay qaabkay wax u laayaan oo aan ognahay si reer galbeedka ula diraan oo aan ognahay sawaariikhda ay haystaan
buu xasan sheekh maanta cadow ka dhigtay bal ha isdifaaca marka wakaasi ummadii Soomaaliyeed amni darro shabaab baa haysatay mid ka daran oo shisheeyo galiyay bal meeshu la arkayna ilaa waa xaqii waxaan sheegay xuutiyiin inuu la diriro xasan sheekh war maxaa ku kalifay halkaasuu jooga waa dal madax bannaan ciidan fara badan ma haysto sawaariikh ma haysto gantaal ma haysto shabaab iyo daacish buu iska xoreyn leeyahay maxaa dagaal xuutiyiin gelinay maxaa ku jirabay kelmadda ah waxay Soomaaliya ka mid tahay ururada siyaasadeed ee carbeed ee la diriraya xuutiyiinta duqeynayana maxaa ku kalifay war Soomaaliya meesha waxba ka socda war waxba anigu ogaha waninka dalka laga qabto war waxaanu gaari doonaa nabad baan ku noolnahay oo xasilooni baan ku noolnahay in qofka Soomaaliga ee ku nool gurigiisa in lagu garaac gantaal in lagu laayo sawaariikh in isku maalin la dilo intaasoo kun oo qof oo Soomaaliya sababteedana waxa wada xasan sheekh maxamuud bal wuxuu ugu jawaabay arkayna marka waayay bal wuxuu ugu boqol wiil oo shabaab buu ka adkaan laayay oo deegaanadii Soomaaliyeed haysata oo shabeelihii dhexe la wareegtay oo Hirshabelle gacanta ku dhigtay oo wax lagu sameeyaa aan la garanayn markaasuu xuutiyiin oo sawaariikh wadata bimaanta aad war dalkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala badbaadi war dalkan meel xun buu ku socdaa meel xun buu ku socdaa dalkan meel xun buu ku socdaa ninkan iska soconaya ee safarka iskaga soconaya ee hal aan habeen aan nasanayn ee iska ordayo hatta aan istaagay dalka Soomaaliya wuxuu ku soo wadaa cawaaqib xumatii ugu weyneed buu ku soo wadaa wuxuu ku wadaa amni darratii ugu weyneed buu ku wadaa wuxuu ku wadaa in bulshada Soomaaliyeed ay kala dhaqaaqdo maalintii shalay ahayd waxaad arkaysaa in 60 jir ka taariibaya Soomaaliya hadda waxaad arkaysaa 90 jir ka taariibaya Soomaaliya waana sababta uu wada xasan sheekh maxamuud taasoo keenaysa in Soomaaliya lagu kala dhaararo lagu kala tago dalalka la galo hadda amni ma lagu nool yahay state by state ba ku nool waa deganna qabiiladan islaynaya iyo shabaabkan ma ahane balaayo kala Soomaaliya ma haysato laakiin xuutiyiin markay ku garaacda gantaalo Soomaaliya sawaariikhna ay ku garaacdo bal xasan waxaad ugu jawaabi lahayd iyo waxaad ka oran lahayd iyo waxaad nimankaas ku duqeynaya aad cadow ga dhigatay bal la kala muuqaalka sheer gareey meel fog gaarsiiyay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh